kula hadlayay Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo kamid ahaa musharaxiintii u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug waxa uu la hadlay bulshada ku nool deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxa uu goobta ka ballan qaaday in maamulka uu garab istaagi doono isla markaana uu la shaqeyn doono isagoo horumarin doona adeegyada aasaasiga ah ee bulshada dowlad goboleedka Galmudug qaar kamid ah dadka munaasabada ka soo qayb galay ayaa waxa ay uga mahad celiyeen sida bulshada uu la hadlay isla markaana uu garab istaagayo maamulka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug oo dhammaan musharaxiinta saasakay jeclaysiiyay qofku bilaadanka markuu ku qadariyo dadkiisa qadariyo uu jecel yahay ala jeclaanaya Cabdiqani wuxuu go'aansaday inuu joogo Galmudug oo ka dhaqaaqin inuu u keeno mashruucyo dadkiisa oo arkay dhibaataysan wuxuu hadalkiisa xalay dadkeena way baahan yihiin biyo la'aan baa haysta dad dhibaataysan baa jira dadaan waxba haysan baa jira waxaa jira hay'ado wada fadhiya mashruuci mid walba meel la fadhido in aan dadkeena u keeno u faa'iideyno qof walba u faa'iideyno baa rabaa go'aankiisa saasaytaa meeshaas waxaa ku tartamahayay ama xilka nin walba sidoo Galmudug u hagaajiyo rab asagoo doonahayo qofna garab taagan sanadradii xafiisyadii dawladda federaalka dhalinyaradii odayaashii looma kala harin qof kastana wuxuu raadinayay Galmudug sidii ay ku hagaagi lahayd marka inta iyada haddii ay meeshii ku tartantay Galmudug waxaan u maleynayaa khasaare caawa kuma fadhido waxaan kaloo idin xaqiijinayaa raggii ku tartamay madaxweyne ku-xigeenada saaka madaxweyne ku-xigeenkii ku guuleystay quraac buu u sameeyay waana wada quraacdeen taas ayada ana waxay muujinaysaa midnimo iyo wadajir Galmudug asaguna inuu kulankaas dalbo waa ku amaanan yahay raggi ayagoo waji farxad leh u la tagay ugu hambaliyay oo la soo quraacday ayaguna sharaf bay ku mudan yihiin oo xaflad dhigan laga guuleystay inuu xaflad dhigo taas waxay ku tusinaysaa meeshaas inaysan guuldara ka dhicin laakiin Cabdiqani uu yahay qofka guuleystay waxaan leeyahay Cabdiqani Sheekh Cali Diini professor wuxuu dalka u yimid inuu dadka u adeego laakiin uma uusan imaan dadka inuu ka adeegto Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo kamid ahaa musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ballan qaaday in maamulka uu garab istaagi doono isla markaana cid waliba waxa uu ku dhiirigeliyay in ay ka shaqeyso midnimada iyo horumarka dowlad goboleedka Galmudug inaynu u mahad celino lana garab istaagno maamulka inoo dhismay sidoo hore ugu socon lahaa uguna dhaqaaqi lahaa ma ahan macnaheedu qofka haddii uusan guuleysan inuusan bulshada door ku lahayn ma aha door buu ku leeyahay bulshada hawl aan laga lahayn oo uu isagu u madax bannaan yahay baa jirta taasna waxa weeye inuu maslaxadda ummadda ka shaqeeyo inuu horumarka ka shaqeeyo inuu midnimada ka shaqeeyo inuu isu keenidda bulshada ka shaqeeyo cidtaa iyada uu ugaga idan qaadanayo ama xil ugu magacaabaysana ma jirto waana midda aan go'aansaday haddii aan guuleysto iyo haddaan guuleysanba labadaba inaan ka shaqeeyo annagu waxaanu ka hadlaynaa maamulka dawliga iyo dhismihiisa wax allaale iyo waxa caqabada oo jirana kulligeen inteenna halkaan fadhida inta maamulka haysa iyo inta naga maqanba waajib saaran weeye inay xalliyaan waana midda aan go'aansaday inaan caawa hortiina ka sheego inaan diyaar u ahay inaan u istaago waxa ugu horeeya oo aan wax ka qaban karo oo ah maamulkan wax allaaliya waxa tabashooyinka jira sidii aan uga shaqayn lahaa in la isu keeno aan gacan ka geysto qof walba meesha uu joogo aan ugu tago waxa tabashadu ay tahayna aan ka soo qaado qofka laga tabanaya aan hor dhigo dood aan la galo la suubiyo kabacdina aanu isku dayno inaanu xalka halka ka raadino xalka haddaanan anagu keenin oo inteena maamulka iskale aanan keenin dadka naga maqan ee kor ka yimid caawin un bay nagu leeyihiin inay na caawiyaan oo wax allaaliya wixii awoodda ay nagu caawiyaan un bay na tari karaan laakiin inay khilaaf bixiyaan
oo dhibaatooyinka jira ay naga saaraan suurtagal ma ahan inaan ka sugno cid bannaanka ah. waxaana la ka rabaa qof walba oo annaga ah inuu masalada iyada u istaago. ugu dambeyn munaasabadda ayay dhallinyaradii soo qabanqaabisay waxa ay ku guddoonsiiyeen shahaado sharaf ay ugu talagaleen waxa ayna uga mahad celiyeen sida uu u gartay in bulshada uu la hadlo islamarkaana u ballan qaaday horumarka iyo garab istaagga maamulka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.